Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal ku soo dhowaada xulka qarankeena Soomaaliya oo guul gaaray lama ilaawana shalantoole oo ka gaaray xulka qaranka Zimbabwe. Haddaba guusha uu gaaray xulka qarankeena Soomaaliya ayaa waxaa ka tirsaneyd koobka qaramada adduunka isreebkiisa. Haddaba wadankeena Soomaaliya ayaa ka qayb galaya tan iyo burburkii dowladda ayaana ka qayb galin isreebka koobka adduunka. Haddaba qarankeena Soomaaliya ayaa shalaytii gaaray guul lama ilaawana oo ka gaaray xulka qaranka Zimbabwe. Haddaba guushaas ay ku gaareen hal gool iyo eber xulka qarankeena Soomaaliya uu ku gool gaaray. Haddaba haddaan soo qaadanay qaybtii hore ayaa waxay ku bilaabatay si cajiib ah, maadaama ay dadaal iyo juhdi ay sameynayeen xulka qarankeena Soomaaliya. Ciyaartooydeeda ayaa daqiiqadii hore isku dayadii ay sameeyeen ku guuldareysteen inay gool ku dhaliyaan, balse qaybtii labaad markii la gaaray ayaa xulka qarankeena Soomaaliya wuxuu soo bandhigay cayaar cajiib ah oo ka gedisaneyd cayaarihii hore oo looga bartay. Xulka qarankeena Soomaaliya ayaa mar walbaba isku dayay inuu gaaro goosha qaranka Zimbabwe weeyaane. Haddaba xulka qarankeena Soomaaliya dadaaladii uu sameynayay iyo daqiiqadihii ugu dambeysay daqiiqadii 87 ayuu ku gaaray gool iyo eber, taas oo caawitaankiisa ka imaatay kabtanka qaranka Soomaaliya kaas oo uu ansixiyay Anwar Shakunda. Haddaba xulka qarankeena Soomaaliya ayaa guul lama ilaawana soo hooyay tan iyo 2009 ma uusan gaarin wax gool ah oo ka gaaray qaramada adduunka. Haddaba xulka qarankeena Soomaaliya ayaa ugu dambeysay inuu gool gaaro 2009 taas oo ka gaaray xulka qaranka Tanzania, taas oo ka gaaray koobka Sakafa Cup. Haddaba xulka qarankeena Soomaaliya ayaa farxad lama ilaawana u soo hooyay qof kasta oo Soomaaliyeed ama qof kasta ku hadasha afka Soomaaliga. Dadaalkii iyo juhdigii ay sameynayeen kumaysa khasaarin. Haddaba xulka qarankeena Soomaaliya ayaa usii dhiman yihiin kulamo kale, inkastay wadada fog tahay. Waxaan u rajaynaynaa goolo kaloo cajiiba biidnillaahi alkariim, waana rajaynaynaa haddii la yiraahdo. Haddaba xulka qarankeena Soomaaliya ayaa waxay ku soo beereen xidiga cajiib ah, juhdi iyo dadaal badan, isku diyaarinaya inay mar uun tagaan inay ka gudbaan isreebka koobka adduunka una gudbaan guruubadiisa 2022 lagu dheli doono wadanka Qatar. Haddaba waa walaalkeen Cumar Samadoon oo idin dhahayo waa janaalkayga cusub, fadlan subscribe saar, waxaana ka heli doontaa barnaamijyo cajiib ah. Gambaleel kala taabo, like saar videoga haddaad ka heshay. Aad u mahadsantihiin, una sii sheer gareeya walaalihiin.